caafimaad qaba halkaan aan iskugu nimid alla ka sokow waxaa mahad iskale dhammaan dadkii xafladda soo qabanqaabiyey meeshaan aad arkaysaan waqti iyo juhdiyaa soo galay marka aad ay u mahadsan yihiin caawa muhiimadda ugu weyn oo meeshaan aan u joognaa waxay tahay inaan u dabaaldegno run ahaantii engoolka guusha meesha ugu dambeysa oo ah sportiga meeshuu hiigsanayo macnaha tiim walba waa baxaa tournamentii uu ka qayb galaa meeshay rabta ha noqoto engoolka iyo meesha ugu dambeeyana waxay tahay in koobka lasoo hanto Ohio United waxay ka baxday ayaga iyo kooxo badan oo magaalada jooga iyo kooxo badan oo meelo kale ka yimaadee waxay ka qayb galeen tournament lagu qabtay Minnesota walaakiin kaama uu qabtay tiradoodu taasoo ahayd 24 tiim 24 tiim ayaa waxay noqdeen kooxdii ugu fiicnayd caawa ayaan halkaan ugu dabaaldegaynaa waxaan rabnaa inaan dhahno haddee waad mudantii run ahaantii congratulation guusha aada soo gaarteen waxaan rabaa si qaasatana waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo kuwa ciyaartooyda run ahaantii waxay soo bandhigeen ciyaaraada wanaagsan dadka banaanka joogana soo jiidatay marka aad dad individual ahaana iskaga soo shaqeeyay tiim ahaana iskaga soo shaqeeyay ayay ahayd marka ciyaartooyda waxaan rabaa hal mar inaad igu wada sacbisaan sidoo kaleeto coachkii caawa meesha ugama jeedo isagana waxaan rabaa mahad gaar inaan u celiyo sidii iskugu dubarday tiimka maaragtay uu waday oo wuxuu bedelayay juhdigii waqtigana uu geliyey sidoo kaleeto dhammaan dadkii guddiga ahaa oo maaragtay qabanqaabinayay oo la socday ayadana run ahaantii marnaba lagama maarmayo in loo mahad celiyo Jakarta oo run ahaantii isaga laftigiisa waqti aada u badan inkastoo ciyaartooy uu yahay haddana maaragtay waqti aada iyo juhdi aada u badan geliyey marka aada iyo mahadsanyahay marka waa congratulation muhiimadda ugu weyn marka oo ciyaartooyda sportiga laga leeyahay waa isdhexgalka waxaan rabaa hal wax inaan ku darsado xoogaa maadaama dad dhalinyaraha maanta aad u badan tihiin inaan bedelno fakerka way aan u fikirno ama waxaan u aragno ama maaragtay aan wax u qiyaasno u miisaano waxaan rabaa su-aal yar inaad isweydiisaan mujtamaca kaleeto ee afrikaanka ah ee annagana la midka ah ama dadka mexicaanka ha noqdaan ama wadamada kale ha noqdaan oo meesha qaxootinimada ku jooga waxaa laga yaabaa inay soo saaraan ciyaartooy aada u tiro badan oo laga yaabo liigaga maaragtay ama kuwa hoose ha noqoto ama kuwa dhexe ha noqoto ama maaragtay kuwa sare ha noqoto ay ku jiraan sababta marka dadka Soomaalida ah juhdiga aan gelino ay ka waageliyaan waqtiga aan gelino anaka waagelinaa su-aasha meesha taala marka waxay tahay sababta keentay in annaka aan soo saarno ciyaartooy aad u yar annaka waqtigeena iyo maaragtay lacagteena iyo enerjigeena gelino sportiga waa su-aal aada u wanaagsan waay xaqiiqdu marka waxay tahay maadaama isku energy aan gelino isku waqtina aan gelino sidaan wax u sameynaa marka qaldan saa u fikirnaa qaldan waxa kaliya oo saxmi kara marka waxaa waa qofka bini aadamka markuu isbedelayo maskaxda inuu iska bedelo haddaada maskaxdaada bedelin fikirkaaga haddaada bedelin sidaa wuxuu aragta haddaada bedelin xaqiiqdii waxaa waa ma bedelmayso marka laba waxood inaan isku qaldin danta gaar ahaaneed iyo danta guud ahaaneed danta gaar ahaaneed ciyaartooydee inaad noqoto fiican waa danta gaar ahaaneed laakiin ciyaartooy fiican keligaa ma noqon karti waa iska shaqayn kartaa dadka kaleeto kuma jooga haddaysan fiicnaanin obviously waxaa waaye adigana waxaa waaye dee wax ku challenge gareeyo oo korkuu qaaday heli maysid sidoo kale tiim fiican noqon maysid tiimamka kaleeto ee magaalada kula jooga haddaysan tiim fiican ahayn tiim fiican ma noqonayso maxaa yeelay tiim ku challenge gareeya malaha waxaa marka loo baahan yahay danta guud in laga wada shaqeeyo hadda waxaan arkaa dhalinyaro aada u tiro badan oo magaaladan buuga ka ciyaarto tiimamka kaleeta meesha waa ka maqanyay waa in loo fikiro marka barito tiimka kaleeta ee maqan koob hadduu qaado in loo soo buuxiyo oo loo soo camiro oo loo sacabatumo oo la encourage gareeyo ayaa la rabaa marka maanta adiga haddaada imaanin barito qofka kale kuma imaanayo marka waa wax danta waa wax isku wada xiran macnaha waxaa waaye hal tiim hadduu fiicnaado hal tiim hadduu fiicnaado dadka hadday wada fiicnaadaan dantu waa isku wada xiran tahay marka waxaa waaye xoogaa fikraddeena aan bedelno xoogaa hoostaan aan isku fiirino aan ka baxno aan u fikirno dad dhalinyaraad tihiin dadkii hore iyo waxyaalihii laga qaldamay adinka sidaa u saxilhaydeen maskaxdeedii caqligeeda laydinka rabaa raalli ahaado waa idinku dheeraaday
waxaan leeyahay congratulation insha allah hadduu ilaahi yidhaahdo guushaan iyo guul lamida kaanu koob walba hadduu dhigto inaan kasoo qaadnaa rabnaa hadduu ilaahi yidhaahdo waa dhigi karaa toban kuna next time ka dhigi karnaa macno madaas waan soo qaadaynaa insha allah hadduu ilaahi yidhaahdo salaamaya congratulation thank you waxaa waaye Ohio United waxaa waaye maasha allah waan igu faraxsannahay 2 jeer ayaa champion back to back noqoteen aniga iyo dad dhalinyaradii hore oo Abelayn u dheeli jirnay mar walba waa isku dayi jirnay oo waxaan dhihi jirnay it's coming home balaakiin adinka maasha allah 2 jeer back to back noqoteen wax yar oo shactira haddaan ku tuuro Ohio United iyo koox la dhahaa Liverpool isku mid waa waxaa waaye Liverpool Ohio United maalin walba domestic qaadaa oo away soo qaadaa laakiin inta oo spring break wali way qaadi la adag Premier League waa laakiin insha Allah next year 2022 waxaa waaye Ohio United waa qaadi doontaa marka waxaan u taaganahay Board of Education Columbus City Schools candidate ayaan ahay primary-ga already waa kusoo weyngaray general election ka socdo I know kulligiin inaad ii codeynaysiin but laakiin if you're not registered to vote you do no good to me so inshallah I want everybody inuu registered yahay registration forms ka wada inshallah waan dhexgalayaa waan iga register garaysanayaa inaad ii codeysiin aan rabaa inaad volunteer ii noqotiin aan rabaa qofkii waqti u helo inshallah it's going to be paid position too sometimes inshallah if we can afford it so it's citywide it's not just district 25 or 26 or whatever it is waxaan citywide waaye so it could be like Wedgwood or you know Agler meelahan dhan waa ii codeyn kartiin as long as Columbus degan tahay oo Westerville ay ahayn Gahanna ay ahayn Dublin ay ahayn Columbus City Schools dhan waa ii codeyn karaan inshallah midaas waa midaas inshallah waxaan u soo istaagana waxaa waaye yani community-geena inaan saacideeyo waxaan rabaa in oo yani guddiga waxbarashada waaye board of electionka waxaa guddiga waxbarashada basically they approve policies-ka iyo waxyaalahaas so iidda ayaan rabaa inaan iskuulaadka kusoo daro oo carruurteena iskuulka maalinka public holiday laga dhigo iiddaas insha allah taageeradiinaan i weydiisanaa thank you November election thank you assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كانوا كفتما يا عرتوا هانجري ضد وحي قنن علي اي تي ضدك هورن وحي قنن علي بولو اسكي طبعا لكن وعيال جري مرحري مركو وحارب ان يلا هدو number 1 congratulations believe in yourself and others will too marka waxa sameeyay is really unbelievable ani success kaas ma gaarin marka baloniga ciyaar jirnay laakiin hadda waxa rabaa inaan hadlo wax oo la dhaho back up plan oo aniga marka yaraa oo ciyaar jiray dareemi jiray which ground lahayn qof igala hadli lahaa this is marka ku jiray 18 19 17 oo marka yaraa marka back up plan waxa waaye hadiyas baloniga waa jeceshahay waa ku fiican tahay indhahaagii wax kale ma arkayn ilaa balooni fiirso daawo game ku ciyaar koob soo qaad maasha allah waa success oo aad u fiican waay laakiin run ahaantii laga hadlo qof kasta oo hadda oo especially kooxdan ku jiro right qof kasta ma gaarayo like you know goalka weyn so runtii aan isku sheegnaa fiican oo maxaa la dhahaa oo even hadda aad gaartay levelka aad doonaysid even hadda gaartay levelka aad doonaysid inuu everything cilmiga ku anfacayo right marka raalin ahaada haddii hadalka oo si qalab usoo baxay badanaa ma sameeyey public speech marka waxaan ii sheegayaa waxaan bixinaa training oo IT oo 3 sano soo sameynaynay hadda trainingkii waxaa kasoo helnay grant state-ka oo qofkii ku baran kara free even hadda qofkii wax u bilaaban yahay dacar maasha allah si aad u maasantahay kambaniga hadda ay sameeyaan certificate shahaadooyinka u baahan yihiin qofkas u baahan yahay waa bixinaa marka kambaniga waxaa dhihi jiray bridge point hadda waxaa u bedelnay ATE kambani kala la shaqeynaa marka trainingkina waa free marka qofkii rabo insha allah information waxaa u gudbinayaa diiwaan idinkana aad u maasantiin insha allah waxaan rajaynaynaa 3 feet next year nasaan ama mahadsanid cali waxayna rabaa inaan ku daro Ohio United cup ay soo qaaday waxay ka soo qaaday Minnesota
laakiin Ohio maxay ugu fadhidaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan sportska haddaan dib ugu yaro laabto waxay soo saartay dad wax badan ka taray Somalia national team sida Umarani Abdi Hassan iyo wiilka waa yar asagana u dheelay under 18 17 haddeertaan waxaa ka ah coachka Cabdixamiid oo garanaysaan inuu final u fadhiyo inuu la dheelo Muqdisho City Club asagoo wato horseed marka waxa ugu fadhidaan waxa wax weyn waaye dhalinyarada Soomaaliyeed ee sportska da'da yar inay wax badan ka qabtaan Soomaaliya gaar ahaan xagga sportska waan u mahadcelinayaa dhammaan sportska Ohio gaar ahaan Columbus iyo North America sida Minnesota iyo Canada kale hadda waxaan rabaa inaan u yeero coachkii soo qaaday koobkan waa coachkii Buba oo wax yar laga dhaho You better speak Somali though. I don't know how to start, but thank you for choosing me. That's all I could say. Thank you. There's so many candidates, and then you choose a guy. I don't speak Somali. I'm not Somali, but somehow you trust me to coach you guys, and then you guys made it easy, simple, best. We are champions. Thank you. Thank you Buba Buba aad buu mahadsan yahay waa nin nagu dhex jiray muddo dheer ilaa 12 sano gaar ahaan sportska kubadda wax badan uu qabtay Ohio kooxo badan buu dheelay gaar ahaan hadda wuxuu la joogaa Ohio United thank you so much Congrats on everybody doing tonight. It's an honor, well that's beyond an honor, to speak on behalf of Ohio United, a very prestige club that's very, very well known all over North America. This team has been doing this for a very, very, very long time. I remember back 2008, 2009, dominating. And then Bashir Gales tournament is at 161, and Ohio United hasn't participated in that tournament since probably like 2016, 2017, around there. So they haven't had a real chance of winning that tournament. But they have dominated their own tournament back when their tournament used to be really, really, really good. This team has many, many, many superstars and had superstars that's known all over North America. Shabelo, Gilao, Ahmed Ramadan, Adish, bunch of superstars that I'm probably forgetting right now that I can't name. But those superstars, as great as they were, this is not to say anything bad about them, have never really went to Canada, to Ohio United, and won a championship. And one of the biggest differences that I've seen from that team to this team that I've never seen before any other team is how together this team is, how much this team loves each other. Like, I've been going with this team for the past 2 or 3 years now, and I've never seen a team that loves each other. Like I've seen one of the best strikers in North America, like I think it's Abdullah, and Abdullah had maybe 3-4 goals in the first game. And then the next game came, he had a wide open goal and could easily pass to Costa or Hakeem to get their goals up. Why? Because he knows at any time he can go ahead and get a goal. At any time he can get a goal. But to get everybody else's confidence up is huge. And he was working on that. And they will come to the hotel and clown all night and have fun. And then, like another guy that works behind the scenes and has been doing that for a very, very long time is Jakarta. And that man does not get the credit that he deserves. I mean, that man works and works and works his butt off. He works, comes home, and thinks about how do I make this team better? Who can I bring to this team to make this team better? Like last year, he got us a couple of players that we really needed because we couldn't have that player at that time. So he got us a player that we needed. This year, I didn't go with the team, but every single moment I was like talking to the players, I was like, what's going on? The final game, and they said it in the video, I don't think you guys heard this, 5 players, that's huge, that's really, really great. Didn't get it.
5 players that are really, really huge. I don't want to say their names, I feel like they're kind of shy about it right now. Didn't get a chance to play. All night, Jakarta, Arab, Buba was thinking, what should we do? How can we make this team better? Another guy that's not talked about a lot, new kid. Guy didn't play the whole tournament, came to the final game. Yeah, he probably has a torn meniscus that he doesn't know about. But came and said, you know what, I can give y'all 15 minutes and I can go ahead and dominate in this 15 minutes. All this, they're doing it for the team. And another thing that I want to say is, like Jakarta always says, we make goals, we have to reach those goals. Now, one of the huge goals that we haven't reached yet with this team is winning one of the biggest indoor tournaments at 161. And that's our next big goal. Inshallah, next year, if COVID or anything doesn't happen, we want to come to the Bashir Gillis tournament and dominate and win that tournament. It's the American tournament. That's all I want to say. Thank you guys. Assalamu alaikum. How you guys doing, man? Somali wuu yar yahay. Ingiriiska xataa waa yar yahay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo akhyaarta. All of you guys oo naga soo taageerteen, nagala soo kabtanka horta uu maqan yahay kabtanka waxay baahay asaga France fiican u hadli lahaa Soomaaligiis waa iga fiican yahay qof waa soo qaadnay taageerahana waa mahadsantihiin dadka aanan taageerin waa mahadsantihiin السلام يا دمان لما يرضى كسر قلب الشيء يدك واوي أو دك وراء سبورتس كيهري شري قال هم حوما العلمية تيم كواي يونايتد أو كوب السوق هذا كوب كان كوبا كوري سنة كوري إن الحمد لله طبعا كسر كوري سنة كوج في تيم كان واحد بدنا نقبتي ما تمشوه وكوج سمتر واحد بدنا التيم كان وصو قبتي هذا السنة كان والله السعودي أو تدار بدنا وكريه inkastoo aan la arkayn koojnimadiisa hoos uu ka shaqeynayay waqti badan uu tiimka geliyay dhalinyarada horta waa ku mahadsan yihiin siday u dadaaleen ay gaar ahaan oo tiimka u ahay aan isku raaceen tiim kastaa u dheer ku doonana ha noqdo laakiin way dadaaleen koobkan inay noo soo qaadaan way ku mahadsan yihiin laakiin koobkan koob baa ka dambeeyay annagu 2 jeer maarsoro waa soo qaadnay laakiin spring break-ga waqti badan baa nalaga qaaday marka kan ugu horeeya aan sugayno waa kan spring break saan ku qaadi lahayn tiim kasta oo haya noqo sidaa doonta u dheh laakiin koobkan inaan qaadano waa spring marka dadaal badan baa nalaga baahan yahay dhalinyarada gaar ahaan ragga banooniga dheela annagu de waa cuslaanay koojashana waa nahay laakiin coach wax ma qaban karo waa dhalinyarada dadaalkooda iyo aalamiitadooda ma garan marka caawa waxaan u hadlayaa coach Samatar oo safar ku maqan oo yar walaalkiisa aroosayo anaan caawa booskiisa taagan inkastoo aan coach asaga booskiisa u taagnahay tiimkana tiimkayga yahay sanadka horena raggii koobka la soo qaaday oo shaqada badan wax ka qabteen waan idin salaamayaa dhammaan Would you actually go here? What up? You look like you just came out of truck. caawa baalkan halkan telefoonkaan ku ficnay laakiin waa layga waana hadlo waxaa idhaha layga dhaafo marka waa mahadsantihiin ragga waaweyn khiyaarta dhalinyarada goobka soo qaaday waa u mahadcelinayaa marka lacagtii badneed ay qaateen aan soo dabagalay laakiin jakarta waa ii jiiday marka waa bashir diyanay ninka laa darbiyada waxaan qaataa meeshan ka amaanin garta ninkii soo dhaweeyaa marka waa mahadsantihiin kulley soo iga imaaday insha allah laakiin koobka waxay adiga aasnayna koobka Minnesota loo guuleystay 2 jeer laakiin anaga 3 sano isku xigta ku guuleysanay hal game isku daran marka ma santiin insha Allah